isboortiska. waa isdhexgalka bulshada waana habka kaliya ee bulshada ay ku kala warqaadato. maamulka gobolka Banaadirna waxa uu intuu uu joogo ku guuleystay dhismaha garoon ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir si kor loogu qaado horumarinta isboortiga gobolka Banaadir iyo furista ciyaaro loo qabanayo waxyaha maamulka dowladda hoose ee Xamar. waxa kale uu maamulka gobolka Banaadir door fiican uu ka qaatay hirgelinta iyo joogteynta tartanka degmooyinka gobolka Banaadir kaas oo maalin walba ay u soo daawasho tagaan kumanaan dadweyne oo kala taageersan degmooyinka gobolka Banaadir. waxaana halkaasi ka soo baxay ciyaartooy matasho gobolka Banaadir si ay uga qayb qaataan tartanka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. waxaana xusid mudan in sanadkan tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ay ka soo qayb gashay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. wuxuu ahmiyad gaar ah siiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ciyaaraha nooc walba oo jiro oo laga ciyaaro Soomaaliya. muddada uu xilka hayo mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish wuxuu xariga kala jaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dhisme casriyeysan oo loo dhisay garoonka kubadda cagta ee ku yaala tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho. hogaamiye Cumar waxa uu dhiirigelin intii awoodiisa u muujiyay kooxda dowladda hoose ee Xamar isagoo la garab taagnaa heel iyo hoow waana tan sababtay in burburka dalka kadib ay ku guuleystaan horyaalka dalka Soomaaliya markii ugu horeysay tan iyo dib u galeelidii. waana tan ku muujinaysa in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish weli uu yahay shakhsi ku xoogan isboortiga. gudoomiye Cumar Filish waxa uu martigeliyay oo uu daahfuray tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho daahfurka ciyaaraha gobolada Kasakow waxa uu sheegay inay ka go'an tahay maamulkiisa inaanu koobkana dhaafin martigeliyaasha gobolka Banaadir. waxa uu marar badan la caweeyay si uu dhirigeliyo kooxda xulka kubadda cagta ee gobolka Banaadir kuwaas oo kama dambeystii ku guuleystay koobkii loo tartamayay kadib markii ay gool kulaadka ka adkaadeen xulka kubadda cagta Galmudug. gudoomiye Cumar Filish oo mahad celiyay dhammaan ciyaartoyda ka soo qayb gashay tartankaasi gaar ahaan guuleystayaasha ayaa meel fagaara kula damaanshaday xulka kubadda cagta gobolka Banaadir oo hantay koobka gobolada dalka Soomaaliya sanadka 2020. waxaana uu rumowday gudoomiye Cumar Filish reediisii ahayd inaanu koobkana dhaafin gobolka Banaadir. Baba!